أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء عليهم من الله عليهم من بيننا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. maanta oo taariikhdu tahay 8 bisha barakaysan ee Ramadaan waxaa si rasmi ah uga furmay masjidka Calimataan ee bartamaha magaalada Hargeysa tartanka guud ee Quraanka Kariimka oo sanad walba hadda oo kale lagu qabto caasimadda dalka ee Hargeysa. Musaabaqada Quraanka Kariimka ee Soomaaliland oo taariikh ahaan soo bilaabantay sanadii 1992 waxa ugu horeyn hadal ka jeediyay gudoomiyaha gudida tartanka Quraanka Kariimka Sheikh Ismaaciil Cabdi Hurre Sheikh Ismaaciil Deeg oo ka warbixiyay maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray tartanka Quraanku muddadii 24 sano ee uu socday. waa tartankii ay ka soo qayb gali jireen arday ka socota gobolada Soomaaliland. guud ahaan marka la isku daro ardayda xulka ah ee ka qayb qaadanaysa tartankan gobolada waa 64 arday ama tartame oo wiilala iyo 31 gabdha ah. ardayda wiilasha ah oo badanaaba ku tartama 30 jis iyo quraanka barkii oo 15 jis 30 jis waxa ku tartami doona 30 arday oo ka socda gobolada aynu oran karno waa gobolada hooyooyinka u ah gobolada Soomaaliland. annagoo gudida qabanqaabada afkeeda ku hadlayna daa'iman gabdhaha gobolada kama keeno way ka duruuf duwan yihiin amba way ka waaya duwan yihiin gabdhuhu wiilasha. sidaa awgeed gabdhaha tartama waxay ka socdaan macaahidda iyo madaarista iyo meelaha quraanka lagu xifdiyo ee magaalada Hargeysa. waxaana tartanka maalgelinaysa shirkadda Dahabshiil oo had iyo jeer qayb laxaad ka qaadata kor u qaadida Quraanka Kariimka iyo arrimaha kale ee khayriga ah. waxaa xusid mudan in tartankan ay ku xigi doonto musaabaqada Quraanka Kariimka ee uu maalgeliyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ah madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliland ee qabta tartan Quraan tan iyo intii ay jirtay Jamhuuriyadda Soomaaliland. tartanka Quraanka Kariimka ee xaddi maanta ka furmay masjidka Calimataan ee magaalada Hargeysa oo socon doona muddo 2 maalmood ah. waxaa si toos ah loogala socday idaacadda Quraanka Kariimka oo iyadana markii ugu horeysay uu dalka ka hirgeliyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo bartamaha sanadkii 2013. Nuuridiin Cabdullaahi Culi Joog iyo Rafiiq Rashiid Bullo, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.